السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha qaaliga waa idin salaamay. Masha Allah, maanta waxaan samaysanay bajiyo iyo basbaas aragtiin. Masha Allah, qaabka u samaysanay ka faa'iideysta insha Allah. Saxaabay bajiyihii digirtan ka samayn waa noocan waa aragtiin. Digirtan aan ka samaysanay. Digirta waxaan ka soo gaday dukaanka Turkida waa xalayaan qasay. biyo kulul xalay la dhigay saaka markaan soo kacay biyihii horaan ka daadiyay. biyo kaloo cusub aan hadana ku sii shubay aan la sii dhigay marka insha Allah hadda waa inoo diyaar. waxaan rabaa inaan qolofta ka madowgaas yar iyo qoloftaas aan rabaa inaan ka qaadno insha Allah. madowga oo dhan lagama wada qaadi kara laakiin intii tabarteena aan isku dayayna insha Allah. halka ana hadda saan ku leeyahay laakiin sheekadan sheeka halka aan lagu dhameyn kara ma ahan. halka inaan maxay labada gacmood aan la soo galay noqonay kaamirada meel iska soo dhigay gacanta kale kaamirada aan ku haystaa laakiin wali way ku dhegan tahay gacan kaliya kuma fujin karo. way jilacsan tahay hadda way jilacday laakiin haddana saas ay tahay gacan kaliya kama fujin karo. walaalaha waa aragtiin labadii gacmood aan la soo galay waxaan rabaa inaan qolofta dhan ka qaadiyo madowga afka hore oo dhan. gacmahaaga saana ku dhehe inta soo qabatid labadaada gacmood isku rige qoloftii dhan way ka qaadmay insha Allah. saana sameynina ilaa wado daqiiqad si ay qoloftii dhan u dhacdo insha Allah. sorry walaalaha codkii abiga xirmi kaamiradii maasha Allah saa u lahaa waxaa barkay iyadoo voice-ka ka xirnaa. marka insha Allah gabagabadii amarweyna hadda wayno wixii qoloftii way ka dhacday inaan soo mirno soo hagaajino noo dhiman insha Allah. qoloftii haddana aan ka bixino inaan ka mirno weli way ku dhegan tahay laakiin wax yar adi sidii hore maahan waa aragti maahan oo hadda digirtii oo dhan hoos ay gashay. أنا مركز الربع إن كجمير ولا لا قليقة ما عرفتي وحقل فوصوت هذا نيس ما عرفتين بيلا بعضن كشوا هتانا ولي قلف بدنا جذا كجبتو كدعذا إن كميرنا إيتهاي بيلا بعضن هذا كشوفنا ما عرفتين لسيدي وسمينينا way soo raacay digir badanaa soo raacay qolofta laakiin waa ka soo baxsan kartaa wax weyn ma ahan inay qolofta meesha nooga hartaa ka daran. halka insha Allah markii u dambeysay 3 jeer biyo nadiif ah ka soo baxay qoloftii oo dhan hadda way ka soo baxday. wali madow way leedahay oo way ku dhegan tahay laakiin inta waan ku shiidan karnaa muhiim ma ahan. marka intii badneed waan ka qaadnay maahan oo intii badneed hadii laga qaaday intaan yar waas kaga shiidan karnaa wax weyn maahan lagama wada qaadi karo digirta. marka insha Allah hadda waxay noo soo diyaarinaa makiinadan ku shiidan lahayn iyo waxa ku darsan lahayn. saxaabay waa kana waxaan soo diyaarsanay xabad basal oo soo jarjaranay iyo halkuu soo toon 2 xabo basbaas iyo in kabsar caleen sidoo kale digirtii inta nooga diyaarsan koob biyo meeshan ku haysanaa. makiinadan raba inaan ku shiito makiinad kale ima taala marka tan la raba inaan ku shiido makiinada kale ka fiican laakiin maxay heedo yani ma haystaan la haystaa. marka insha Allah tan raba inaan ku shiido qaybtii u horeysaan makiinadii ku shubanay intaan ku shiidina marka u horeyso laba qaybaan ka kala dhignay hal mar lama wada shiidi kara makiinada aadna way u yar tahay. digirtan maadaama wax yar biyo leh raba inaan ku daro hal mar ma bal wada shiidi kara maahan. marka insha Allah qaybtii hore way noo shiiday waa aragtay masha Allah. isla baaquligeeda marka hore aan ku qasno un baa rabaa hadana inaan ku gadiyo diikal hal saxan aan isku keeyay hadana qaybtii labaad soo shiidi doona insha Allah. markaas walaalahay waa aragtiin waxaan ku darsanaa wax yar oo cusbo hal qaando yar soo cusbo waaye dhinaanka badan ma jeceli intaan kaliya rabo inaan ku darsado insha Allah. mar walba iska control adi dhinaankaaga iska fiiri adi waxa jeceshahay ku darsan insha Allah.
ani intaan rabo kaliya rabo inaan ku daro sababtoo ah basbaas rabo inaan ku cuno maahan oo basbaaskiina cusbo leeyahay liin in cusbo lagu shiido waaye inaan liin ku darsanaan rabo marka dhinaanka meesha kaleba ka imaanaya markaad cusbada iska dhadhami mar walba insha Allah qiyaastaada ku darso bajiyaha qiyaastaada samaysan kartaa marka insha Allah ka faa'iideysta walaalaha kale uga faa'iideey wax yaraan dhadhamiyay dhacankeedan fiirinay laakiin hada cusbadeeda waa normal mana ku badna mana ku yaraa intaana marka saano aan ku ekeysiin cusbo kale kuma daraayo maasha Allah mana jilicsan waa aratiin intii biyaha heedno aan ku shiiday adeegna ma ahan oo maxay balkiina ma ahan jileecna ma ahan marka insha Allah waxaan noo soo diyaarinaa taawadii saliid aan ku duban lahayn walaalaha qaaliga saliid aan noo soo diyaariyay hadda way noo kulaatay iyo meeshaan ku ridan lahayn meeshaan waxaan ku haysanaa biyaha soo raba inaan faraha mar walba inay ka qabsato ma ahan marka farahaas baaquligaas biyaha yara farahaas aan ku dhahe kadibna waxaasheena soo qaadanay waxaas oo sameynaa waxay tahay inay calool yeelato maro iyadoo khafiif biyaha khafiifkay ku macaan tahay iyadoo khafiif inay nagu soo baxdo waa insha Allah aan jeclaystay oo yani calool waxba lahayn abadii horeysada saanay ku kartay ma aragtiin saliida kuleel noqotay saliidan markasto normal ah fiican kuleel zaidna ma fiicno adeesan inay hore u gaduudato oo hadana dhaxdina ceerin ka noqotaa laga yaabaa marka dabka u gaawiyay maadaama saliidiga kulaatay labada u horeysada waa aragtiin laakiin wali iyadaaba khafiif ah iyadoo kuus ma ahan mana jilicsan waa aragtiin marka faraha saa marka ku dhaaday xitaa khafiif ay noqonay marka saliid normal oo ayaa ku fiican mar walba si tartiibteed ugu karto oo caloolna ay yeelanin marka insha Allah hadda waan noo gedina qaybtii kale qaybtii hoose soo gaduudatay in hadana qaybtii kale u gedina waaye saacada qaaliga asaana ku soo dhamaysanayna insha Allah waa aragtiin wajiyaha indheeda laga kartaa macaankan adile ku darsa qiyaasta waa masha Allah tabarakallah ini galay aad masha Allah walaalaha qaaliga saan u wada gidgidina insha Allah markaan soo dhameeyo arki doontiin si qurux badan oo ku soo baxda qaybtan hadda saanay diyaar noogu tahay dabkan way xiro oo gaawiyad waa labadii hore baa gaduud oo zaid u gaduudtay inta kale oo dhan hadda normaalkooda ay noqdeen marka insha Allah qaybtii labaad walaalaheedana ay noo diyaariyay qaybtii labaad hadda aan ku ridani taawadeeni marka insha Allah ka faa'iideysta walaalaha qaaliga walaalaha kale uga faa'iiday waxaan jeclaystay inaan idinka faa'iideeyo qaabka uu samaysto qof walba qaab uu samaysta waxaan dhahay walaalaha uga faa'iiday maadaama aad wixii faraha kula jirto aad samayn rabtid aragtiin intii hore noo soo baxday si u qurux badan tahay masha Allah dhaxdeedana waa aragtiin calool waxba ma lahan kuleel waaye inta la soo bixi marka insha Allah qaybtana sugayna hadana wax yar waa aragtintii haday tan isma lahan sababtoo ah tan dabkeeda hadda normal waaye mana dheera mana gaabsana inay saan ahaataa fiican bajiyaha oo kor iyo hoos baa maras labada yani si tartiib ay u karto say dhaxdan ay ugu noqon ceedin ugu dambeyntii masha Allah tabarakallah waxaan soo dhamaatay jihayna aragtiin faa'iideysta walaalaha kale uga faa'iiday fadlan subscribe la socotid mar walba hadda hore nala joogtiin masha Allah like iyo comment iyo share rankiina waaye mar walba oo ku faraxsanaa sida nala joogtiin oo noo taageertiin aydan leeyahay aad iyo aad mahadsantiin jazaakumullahu khayr السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.